Ma tahay qof lacag uga xiran tahay Security Gmail Team ama Security Document Email Team? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, ama haddii ay ku qabsato sidaad u xalin lahayd ayaa muuqaalkan kugula wadaagi doonaa. Hadda maxaan ku wadaa maanta maxaan kula wadaagayaa? ugu horeyn janalka daawanaysa waa Galer Media, aniguna waa Cabdalla Ilaano. Maanta muuqaalkan ku wado waxa weeye haddii ay ku weydiiyaan qolada amniga adigoo withdraw sameynaya, adigoo lacag la bixis sameynaya, haddii ay ku weydiiyaan dokumentiga ama ID-ga markaasi kugu xirnay markaasi OneXBet-kaaga qaabka u xalin lahayd. Number 1, lambarka labaad intaysa taasi kugu dhicin sida aad uga fojignaan lahayd ama aad uga taxadiri lahayd ayaan rabaa inaan kugula wadaaga muuqaalkan. Haddii aad degdegayso kolley xilli aad adigu firaaqo leedahay ayar intuu u degsatid u daawatid koobkaaga shaah usoo qaadatid tartiib ula soco, markaad muuqaalka dhammaysay kadib hawshaasi ku dhaq. Sidaba haddii aad aad wax sameynayso waxa wanaagsan inaad marka ugu horeysa foojignaan aad wax ku sameysaa, inaad wax ku sameysaa. Intaas waa hordhac iyo tala bixin ayaan siinayo. Kaliya maaha OneXBet, aniga kaliya kama hadlo, muhiimadeeda kaliya maaha OneXBet-ka kaliya kama hadlo. Waxaan ka hadlaa YouTube aan ka soo hadlaa, application badan oo ka soo hadla way jiraan oo markaasi asxaabta su'aalo ka soo weydiiyaan oo muuqaalo ka soo sameeyo. Marka tala bixinta aan siinayo waxay tahay application kasta oo markaasi adiga aad iska diiwaan gelinayso waxa wanaagsan in aad ka sameyso marka aad diiwaan gelinayso diiwaanka ama form marka aad buuxinayso inaad ka reebato file ama screenshot. Marka caqabada koowaad ayaan hadda xalinaynaa. Tusaale marka lambar 1 ayaan bilaabaynaa. ila soco haddii uu akoonkaagii horeeto aad ka haysanin documenti, ogow inay markas kugu dhici karto security ID-ga. haddii aad ID saxan ama information sax ah oo hadhowdii aad haysato caddeyn ah aad haysato aad waxa ku heli karto haddii uu kugu xirnayn. Marka horeeto waa inaan kuu sheegaa qaabka aad marka horeeto aad isku diiwaan gelin lahayd dokumentigaagana aad u caddeysan lahayd waa inaan kuu sheegaa. kolley inaad fahantay ayaan rajeynaya, ila soco. haddaba sida aad muuqaalka hordhiciisa aad ku maqashay ama title-kaba aad ku soo aragtay, sida title-ka ama hordhaca muuqaalkaba aad ku soo maqasheen, barnaamijkeenu waa qaabka aan u xalin lahayn security ID, security document ama security qaybta withdraw-ga amniga. ka hor inta aad isheeg adiga aysan ku qabsanin xaaladaasi lambar 1 iyo haddii ay ku qabsato sideed u xalin lahayd. Marka lambar 1 waxaan ka bilaabayaa sida markii adiga aad intaas ku qabsanin ka hor haddii aad hadda akoon leedahay aad isticmaasho aad informationkiisa xogtiisa macluumaadkiisa saxda aad haysanin aad markaasi aad iskaga daysaa oo lacagna aad isaga khasaarin. waayo dhawaanahan shabakadda OneXBet update ay ku sameysay badanaa lacagaha waa ku xayirmayaan, ma fahanteen? Marka waxaan rabaa inaan la wadaago lambar 1 qaabkii aad sameyn lahayd. dadkii yaqaan way yaqaanaan, kuwan aqoon ama ka haysta faylka ka haysta oo faylkooda u diiwaan gashan u diyaarsan yahay, kuwaasi ayaguna haddii ay lacag kaga xiran tahay waxaan u sheegayaa ama muuqaalkan ugu soo bandhigayaa qaabka ay u xalin lahaayeen. waxaan muuqaalkan kugu soo bandhigayaa qaabka aad u xalin lahayd haddii uu kugu dhigo security documentiga, haddii uu kugu dhigo adigoo lacag la bixi rabo. Marka ila soco.
lambar 1 haddii aad ka samaysatay marka horeeto 1 click. lambar 2 haddii aad ka samaysatay by phone, haddii aad ka samaysatay full. saddexdaas haddii aad ka samaysatay waxa waaye waa isku wada mid, laakiin badanaa hadirtaan dhawaanahan wax inta ugu badan aniga tusaale fullku iga samaysan yahay. dad badan oo by phone ku samaystaan waa jiraan, dad badan oo maaragtaa ku samaystaan. inta badan dadka waxa waaye qofaan macnaha ku cusub ama aan si fiican aqoon saas u lahayn ayaa waxay dhahaan akoon ismay 1 click ay ka samaystaan. marka maadaama 1 click loo badan yahay, caqabada ugu badan ee ka imaato 1 click ayaa rabaa marka inaan ku fahansiiyo. asxaabna way weydiiyeen sida promo code loo samaysto. promo code ka horta waa la gadaa, waa la iibsadaa. qaarna waan arkayay oo sida loogala baxo bonuska isoo weydiinayay. marka saaxiibada qaaliga ah, haddii aad bonus aad maaragtaa bonuska sida loola baxo haddii aad doonaysaan ama aad danaynaysaan, aniga ayaa idin sheegaya. waxaana idinkugu sheegayaa maadaama bonuska uu kugu jiro telefoonkaaga, linkiga ama linkiga whatsappkayga ayaa waxaan kusoo dhigayaa qaybta ugu horeyso ee descriptionka muuqaalka. fadlan halkaasi igala soo hadal adiga oo mahadsan, aniga ayaa ka caawinaya. mar walba waxaan jeclahay saaxiibada qaaliga ay ku xiran channelkayga in aan maaragtaa ka xaqabtiro wax alaala waxa ay soo weydiiyeen. intaani waa garanaysaan dhammaanteen, intaan waa garanaysaan. keliya waxa idinku cusub waxay noqon karaan qaybtan oo aan waxba badana aan waxba aynan gelin, qaybtan oo badana aan waxba aynan gelin. qaybtan marka waxa waaye waxaa la yidhahdaa promo code. intaan markii aad soo samaysa marka waa kan akoonka uu samaysmay. lambar 1 waa taqaanaa, waxaad ka qaadanaysaa screenshot. lambar 2 copy ayaad leedahay. lambarka 3aadna next ayaad leedahay. intaa markaad dhammayso login wuu soo kacayaa. okay, akoonkii waa kan wuu soo kacay. promo code waa ii samaysan yahay. okay, intaan markaa imaado ID-ga profile-ka waa kan. profile-ka waa kan. markii aad halkan joogto aad halkan ku dhufato, caqabada meesha ay ka timaado waxa weeye in security-ga uu ku weydiiyo, in security-ga oo mararka qaar lacagtaada uu ku diido. waxa keenaya lambar 1, lambar 2, lambar 3 iyo lambarka 4. intaan haddii si fiican ay kugu dhammaystiran tahay oo ay maaragtaa ku dhammaystiran tahay, inta kaleetan dib ayaan weliba kula wadaagi doonaa. marka ha iga degdegin, muuqaalka si degdegen loo soco. okay, foomka dad baa waxay sameeyaan waxay doonaan ay iska gelgeliyaan. foomka dad baa waxay sameeyaan isku dayaan waxay doonaan inay iska gelgelishaan. halkan mid walba wuxuu kaaga baahan yahay in aad geliso documenti sax ah. haddii marka adiga aad haysanin documenti ama ID, shahaado ha ahaato passport ha ahaado, ID card ha ahaado, business card ha ahaado, waxaasoo dhan waa inay haystaa. haddii aad intaasi midna aad haysan, waxaa samayn kartaa ID qof saaxiibka uu leeyahay ama warqad dhalasho ee sugnaan oo markaas qof uu leeyahay ayaad samaysanaysaa. muhiimadda keliya waxay tahay inaad maaragtaa documentiga adiga markaas aad geliso serial numberka. kolley markaad u bato warka kiis dambe ku ilowsiyaal yiri saan hadda u buuxinayo waa inay la socotaa. kolley halkan waxaan ku qorayaa galer ay halkan ku qorayaa seminar, waxaan ku qorayaa media. okay, galer media magaca first name waa galer, magaca labaadna waa sami name-ka waxa waaye media ka dhigay. okay, halkan waxaan ka dhigaa marka magacayga oo ah Cabdallah. haddii kaleeto halkan ayaa waxaan ka dhigayaa galer media, dhib malahan, galer media ka dhig. middle name-ka waa kan, magaca dhexe waa kan. muhiimadda inta badan muhiimadda ay daneeyaan
markii security-ga qolada security-ga ay kugu dhigaan qolada security-ga markii ay kugu dhigaan muhiimadda ay daneeyaan waa labadan middle name-ka muhiim uma ahan labadan ayaa marka hore ugu horeyso marka ugu horeyso middle name-ka waxba waa caadi okay Abdallah okay birthday-ga ayaad halkan ku qoreysaa taariikhda halkan aad ku qoreyso ogow taariikhda halkan aad ku qoreyso iyo ID-ga ama documentiga ama warqadda markaasi aad foomkaadan aad ku buuxinayso ee aad haysato macluumaadka markaasi aad haysato ee documentiga ah ee adiga markaasi aad haysato oo rabto inaad markaasi aad foomkan ku buuxsato waa in markaasi aad taariikhda ku qoran haddaba dhegeyso taariikhda ku qoran waa inay islahaadaan taariikhda documentiga ah meeshaan gelinayso dhalashada kugu qoran hadday dhalasho tahay ahaan calashan ID card tusaale ID card ah haystaa oo leesina ama waxaa haystaa ID oo nationality ID haystaa waxaa haystaa ID business card haystaa marka ID-daas haysato oo sawirkaaga iyo taariikhda dhalashadaada iyo magacaaga ay ka muuqdaan taariikhda kugu qoran date-ka kugu qoran waa inaad mar walba gelisaa okay inaad fahantaa rajeynaa halkan waxaad gelinaysaa place of breed waxa waaye waa place of breed waa halka aad ku dhalatay waa magaalada aad ku dhalatay calashaan xarunta aad ku dhalatay okay waxaad ku dhalatay Muqdisho Banaadir Kismaayo Hargeysa Boosaaso Bari Boorama halkii aad doonto adiga okay aniga hadda Muqdisho ayaan gelinayaa region halkan ay ku qoran tahay kale Muqdisho ku qoran waa ujeedaa Banaadir okay hadda city caasimada waxa waaye caasimada waa Muqdisho city region gobolka waa Muqdisho xarunta ku dhashan waa Muqdisho okay meeshan waxa lagu yiri waxaa lagu yiri halkan residency address waxaa la yiraahdaa tusaale markii aad lacag la baxayso wanaagsbidada dadkan oo kaashiyerada lacagaha sarifa marka lacag u bixinayso waxaad sameysaa calashan waxaad gelisaa tusaale magaca markaasi qofka lacagta ku dirayo kaleeto ayaad gelisaa aniga hadda exchange money waa sameeyaa oo maaragtaa cashier waan ahay kulley maaragtaa asxaabteeda YouTube-ka ku xiran ku soo biiri doonta ayaan rajeynayaa okay waxa igu qoran marka waxa igu qoran diamond 24/7 okay intaan ina fahantaa ayaa rajeynayaa marka labadan haddii aad ID card haysato dhegeyso warqadda dhalashada sugnaanta kale markii aad haysato documenti ayaa dooranaysaa markii aad haysato warqadda dhalashada sugnaanta markii aad haysato waxaad dooranaysaa haddaba markii adiga aad haysato dhegeyso labadan ayaa lagu soo bandhigay marka haddii aad documenti haysato documenti waxaa la dhahaa calashaan tusaale sabarloogo kaleeto warqadda dhalashada sugnaanta oo kaleeto warqadahan adiga oo laga baxsho xafiisyada dowladaha oo kaleeto oo adiga markaasi noocay doonta ahaato warqad shahaado kaleeto ahaato adiga wixii documenti ku saabsan documenti ayaa dooranaysaa wixii ID ku saabsan ID ayaa dooranaysaa ID nationality ID business ahaado ma u kala baxsanaya laakiin ayaga waxa uu qoran muhiimaddu waxay tahay documenti iyo ID marka ID passport ID way documenti way hadda aniga documenti ayaan soo dooranaya waxaan rabaa marka inaan geliyo documentiga halkan inaan geliyo documentiga iyo lambarkiisa serial numberkiisa waxaa waaye tusaale eber 16 eber 17
halkan ay haddana waxaan gelinayaa eber eber 6 7 eber 7 kani waa serial kanna waa document numberka inaa fahamta ayaa rajeynayaa. Okay, taariikhda la sameeyey waa haddii aad aragto issue of that macnaha haddii aad aragto date of issue haddii aad aragto macnaha haddii aad aragto date of issue haddii aad aragto waxa weeye waxaa loola jeedaa taariikhda la sameeyey markaasi documentigani taariikhda la sameeyey. Okay, taariikhda la sameeyey documentigani waxaa la sameeyey Febraayo 5 maxaa la leeyahay bisha Janaayo 2 ayaa la sameeyey. waa in ay islahaadaan calaashaan macluumaadkan halkan aan geynayo iyo hadhowdii documentigii ama ID-gii aniga aan ku samaystay inay islahaadaan. Okay, halkani marka wuxuu ku yidhi issue by sign yaa saxiixay markaan documentiga yaa saxiixay. dib malaha documentiga waxaa saxiixay adiga muhiim ku ahan waxaad ku qori kartaa markaasi magacaaga ama magaca markaasi documentiga kugu qoran kolay magaca documentiga kugu qoran ayaad ku qori kartaa. aniga waxaan ku qorayaa Cabdalla ayaa saxiixay. Okay, intaan kolay waa fahantay. intaan markii aad fahantay oo aad haysato macnaha gallery media ku qortay username magaca waaye laakiin calaashaan markii aan rabo in aan ku qorto magacayga macnaha intaan dambe macluumaadka si sax ayaa la wadaagay oo waa sida documentiga labadan waxaan misaal ahaan tusaale ahaan ooga dhigayaa calaashaan inta waxaa laga rabaa magacaaga koowaad magacaaga labaad ma maqlaysaa. halkan tusaale Maxamed aa lagu dhahaa documentiga waxaa kugu qoran Maxamed adi lahaw ama qof walaalka ha lahaado ama qof qaraabatiin ha lahaado magaca markaasi ID-ga ama documentiga markaasi adiga aad ku qoranayso ee aad gashanayso markaasi meeshan aad gashanayso oo hadhowdii xoolahaagii ama wixii kaaga xayir ma aragto inaad ku badbaadsato waa inaad halkan magac ku qoran aad gelisaa. tusaale Maxamed Cabdalla Mustafa Muhammad. Okay, waasan inaad fahantay ee rajeynaya. halkan marka intaan marka waxaa waaye intani waxaan saaray kani waxaan saaray Cabdalla. halkan waxaan ku qoray Mustafa halkan Muhammad ayaan ku qoray. halkan waa taariikhda ama dhalashadeeda ha noqoto oo markaasi documentiga u qoran ha noqoto ama ha noqoto taariikhda markaasi ID ku qoran ha noqoto. meeshani waa xarunta dhalashadaada. halkan waa gobolka markaasi joogto. halkanna waa caasimadda markaasi aad joogto. reside address-kana waxa waaye ishaga adiga residence address-kana waxa weeye markaasi address-ka hadhowdii haddii aad cashier ama aad rabto inaad lacagta wanaagsbiid kugu jirta oo wanaagsbiid qof kale ugu dirta aad rabto ama lagugu soo dira aad rabto qof kale wanaagsbiid kugu soo dira aad rabto address-ka lagugu soo diri lahaa. halkani marka waxaad ku qoraysaa halkani waa documenti haddii aad taabato waxaa kuu soo baxaya ID ama documenti. hadda documenti ayaan soo doortay. serial numberka markaasi ID-ga kugu qoran ama documentiga kugu qoran. halkan waa numberka oo complete oo markaasi kugu qoran ishaga adiga ilaahay kuma darnaadee kani waa serial ha isku qaldin midkan lambaradan tirada badan serial waaye wuxuu ku qoran yahay kaarka adiga haysato jiifarada ku qoran ama documentiga jiifarada tirada badan ee ku qoran waaye laakiin kan hoose waa kaar macnaha kaar numberka ama ID-ga ama documenti numberka markaas adiga aad leedahay waaye. kolay inaa fahantaa rajeynaa. halkani taariikhda la sameeyey waaye. intaan markii aad dhammayso kadib halkan saxiixa waxaad doonto ku qoro kadib inta aad halkan tigtan inta aad taaban waa inaad screenshot aad ka qaadataa. kolay kadib ayaa tigta saaraysaa. marka profilekii kolay waa soo buuxinay oo waad aragtaa oo complete waaye
oo halkan aad ka arki kartaa. Kaleeto waxaan ku xasuusinayaa haddii markaasi uu lambar uu ku saarneen kuwan muuqaal aan ka duway jiraan qaabka loo buuxbuuxiyo kolley si waad sii daawo kartaa. haddii kaleetana hadeertaan ayaan idinkoo arkaya buuxbuuxinayaa. Gmailka halkan tig ayaa halkan tig ayuu ku saaray. halkan aad tegeysaa waxaad sameyneysaa question meeshaan ay ku qoran tahay waxaa halkan ku qoran answer to your question. inta wuxuu ku yidhi select your question. halkan question security aa lahaa. question security-ga mararka qaar wuxuu kaa caawin karaa in akoonkaaga qof aan security questionkan aan ka jawaabi karin inuusan furi karin. ma fahantay ayaan rajeynayaa. marka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qaaliga ah, saaxiibada qaaliga ah. haddee waqti kastoo ku tahay wanaagsan waa aniga oo cabdalla ilaana janaalka daawanaysan waa Galer Media. isku soo naqad wanaagsan oo weliba xiiso badan. waxaan ku xasuusinayaa janaalka inuu yahay janaalka Galer Media. waxaan kuu rajeynayaa maalintaada inay wanaagsan tahay say maalinteeda u wanaagsan tahay. waxaan kuu rajeynayaa hadday habeenku tahay iyo hadday maalinku tahaba kolley inay kuu wanaagsan tahay. hadda maxaan ku wadaa awow maanta maxaan kula wadaagayaa. ugu horeyn janalka daawanaysa waa Galer Media, aniguna waa Cabdalla Ilaano. maanta muuqaalkan ku wado waxaa weeye haddii ay ku weydiiyaan qolada amniga adigoo wisdrow sameynaya, adigoo lacag la bixis sameynaya, haddii ay ku weydiiyaan dukumentiga ama ID-ga markaasi kugu xirnay markaasi OneXBet-kaaga qaabka u xalin lahayd. lambar 1. lambarka 2 intaysa taasi kugu dhicin sida aad uga fojignaan lahayd ama aad uga taxadiri lahayd ayaan rabaa inaan kugula wadaaga muuqaalkan. haddii aad degdegayso kolley xilli aad adigu firaaqo leedahay ayer inta u degsatid u daawatid koobkaaga shaah usoo qaadatid tartiib ula soco. markaad muuqaalka dhammaysay kadib howshaasi ku dhaq. sidaba haddii aad wax sameynayso waxa wanaagsan inaad marka ugu horeysa foojignaan aad wax ku sameysaa. inaad wax ku sameysa intaas waa hordhac iyo tala bixin ayaan siinayo. keliya maaha OneXBet. aniga keliya kama hadlo, muhiimadeeda keliya maaha OneXBet-ka keliya kama hadlo. waxaan ka hadlaa YouTube aan kasoo hadlaa, applicationo badan oo kasoo hadla way jiraan oo markaasi asxaabta su-aalay kasoo weydiiyaan oo muuqaalo kasoo sameeyo. marka tala bixinta aan siinayo waxay tahay application kasta oo markaasi adiga aad iska diiwaan gelinayso waxaa wanaagsan in aad ka sameyso marka aad diiwaan gelinayso diiwaanka ama foomka marka aad buuxinayso aad ka reebato fail ama screenshot. marka caqabada koowaad ayaan hadda xalinaynaa. tusaale marka lambar 1 ayaan bilaabeynaa. ila soco. haddii uu akoonkaagii horeeto aadan ka haysanin documenti, ogow inay markasta kugu dhici karto security ID-ga. haddii aad ID saxan ama information sax ah oo hadhowdii aad haysato caddeyn ah aad haysato aad waxaa ku heli karto haddii uusan kugu xirnayn. marka horeeto waa inaan kuu sheegaa qaabka aad marka horeeto aad isku diiwaan gelin lahayd dukumentigaaga aad u caddeysan lahayd waa inaan kuu sheegaa. kolley inaad fahantay ayaan rajeynaya. ila soco. haddaba sida aad muuqaalka hordhiciisa aad ku maqashay ama title-kaba aad ku soo aragtay, sida title-ka ama hordhaca muuqaalkaba aad ku soo maqasheen, barnaamijkeenu waa qaabka aan u xalin lahayn security ID, security documenti ama security qaybta wasdarowga amniga
ka hor inta aad maaragtaa ii sheeg adiga aad aysan ku qabsanin xaaladaasi lambar 1 iyo haddii ay ku qabsato sideed u xalin lahayd. marka lambar 1 waxaan ka bilaabayaa sida markii adiga aad intaas ku qabsanin ka hor haddii aad hadda akoon leedahay aad isticmaasho aad informationkiisa xogtiisa macluumaadkiisa saxda aad haysayn aad markaasi aad iskaga daysaa oo lacagna aad isaga khasaarin. waayo dhawaanahan shabakadda one xbet update ay ku samaysay badanaa lacaga waa ku xayirmayaan, ma fahanteen? marka waxaan rabaa inaan la wadaago lambar 1 qaabkii aad samayn lahayd. dadkii yaqaan way yaqaan, kuwan aqoon ama ka haysta faylka ka haysta oo faylkooda u diiwaan gashan u diyaarsan yahay, kuwaasi ayaguna haddii ay lacag kaga xayiran tahay waxaan u sheegayaa ama muuqaalkan ugu soo bandhigayaa qaabka ay u xalin lahaayeen. waxaan muuqaalkan kugu soo bandhigayaa qaabka aad u xalin lahayd haddii uu kugu dhiga security documentiga, haddii uu kugu dhiga adigoo lacag la bixi rabo. marka ila soo lambar 1 haddii aad ka samaysatay marka horeeto 1 click. lambar 2 haddii aad ka samaysatay by phone, haddii aad ka samaysatay full. saddexdaas haddii aad ka samaysatay waxa waaye waa isku wada mid, laakiin badanaa hadirtaan dhawaanahan wax inta ugu badan aniga tusaale fullku iga samaysan yahay. dad badan oo by phone ku samaystaan waa jiraan, dad badan oo maaragtaa ku samaystaan. inta badan hadda dadka waxa waaye qof aan micnaha ku cusub ama aan si fiican aqoon saas u lahayn ayaa waxay dhahaan akoon ismay 1 click ay ka samaystaan. marka maadaama 1 click loo badan yahay, caqabada ugu badan ee ka imaato 1 click ayaa rabaa marka inaan ku fahansiiyo. asxaabna way weydiiyeen sida promo code loo samaysto. promo code ka horta waa la gadaa, waa la iibsadaa. qaarna waan arkayay oo sida loogala baxo bonuska isoo weydiinayay. marka saaxiibada qaaliga ah haddii aad bonus aad maaragtaa bonuska sida loola baxo haddii aad doonaysaan ama aad danaynaysaan, aniga ayaa idin sheegaya. waxaana idinkugu sheegayaa maadaama bonuska uu kugu jiro telefoonkaaga, linkigayga ama linkii whatsappkayga ayaa waxaan kusoo dhigayaa qaybta ugu horeyso ee descriptionka muuqaalka. fadlan halkaasi igala soo hadal adiga oo mahadsan, aniga ayaa ka caawinaya. mar walba waxaan jeclahay saaxiibada qaaliga ay ku xiran channelkayga in aan maaragtay ka xaqabtiro wax alaala waxa ay soo weydiiyeen. intaani waa garanaysaan dhammaanteen, intaan waa garanaysaan. kaliya waxa idinku cusub waxay noqon karaan qaybtan oo aan waxba badana aan waxba aynan gelin, qaybtan oo badana aan waxba aynan gelin. qaybtan marka waxa waaye waxaa la yiraahdaa promo code. intaan markii aad soo samaysa marka waa kan akoonkii wuu samaysmay. lambar 1 waa taqaanaa, waxaad ka qaadanaysaa screenshot. lambar 2 copy ayaad leedahay. lambarka 3aadna next ayaad leedahay. intaa markaad dhammayso login wuu soo kacayaa. okay, akoonkii waa kan wuu soo kacay. promo code waa ii samaysan yahay. okay, intaan markaa imaado ID-ga profile-ka waa kan. profile-ka waa kan. markii aad halkan joogto aad halkan ku dhufato caqabada meesha ay ka timaado waxa weeye in security-ga uu ku weydiiyo, in security-ga oo mararka qaar lacagtaada uu ku diido. waxa keenaya lambar 1, lambar 2, lambar 3 iyo lambarka 4. intaan haddii si fiican ay kugu dhammaystiran tahay oo ay maaragtaa ku dhammaystiran tahay, inta kaleetan dib ayaan weliba kula wadaagi doonaa. marka ha iga degdegin, muuqaalka si degdegen loo soco. okay, foomka dad baa waxay sameeyaan waxay doonaan ay iska gelgeliyaan. foomka dad baa waxay sameeyaan isku dayaan waxay doonaan inay iska gelgelishaan. halkan mid walba wuxuu kaaga baahan yahay in aad geliso documenti sax ah. haddii marka adiga aad haysanin documenti ama ID shahaado ha ahaato,
ha ahaato passport, ha ahaado ID card, ha ahaado business card, ha ahaado waxaasoo dhan waa inay haystaa. haddii aad intaasi midna aad haysan, intaas haddii aad midna aad haysan, intaas haddii aad midna aad haysan, waxaa samayn kartaa ID qof saaxiibka uu leeyahay ama warqad dhalasho ee sugnaan oo markaas qof uu leeyahay ayaad samaysanaysaa. muhiimadda keliya waxay tahay inaad maarata documentiga adiga markaas aad geliso serial numberka. kolley markaad u bato warka kiis dambe ku ilowsiyaa yiri saan hadda u buuxinayo waa inay la socotaa. kolley halkan waxaan ku qorayaa galer ay halkan ku qorayaa seminar, waxaan ku qorayaa media. okay, galer media magaca first name waa galer, magaca labaadna waa sami nameka waxa waaye media ka dhigay. okay, halkan waxaan ka dhigaa marka magacayga oo ah Cabdallah. haddii kaleeto halkan ayaa waxaan ka dhigayaa galer media, dhib malahan, galer media ka dhig. middle nameka waa kan, magaca dhexe waa kan. muhiimadda inta badan muhiimadda ay daneeyaan markii security-ga qolada security-ga ay kugu dhigaan, qolada security-ga markii ay kugu dhigaan muhiimadda ay daneeyaan waa labadan. middle nameka muhiim uma ahan, labadan ayaa marka hore ugu horeyso, labadan ayaa ugu horeyso marka ugu horeyso. middle nameka waxba waa caadi. okay, Cabdallah. okay, birthday-ga ayaad halkan ku qoreysaa, birthday-ga ayaad halkan ku qoreysaa. taariikhda halkan aad ku qoreyso, ogow taariikhda halkan aad ku qoreyso iyo ID-ga ama documentiga ama warqadda markaasi aad foomkaadan aad ku buuxinayso ee aad haysato, macluumaadka markaasi aad haysato ee documentiga ah ee adiga markaasi aad haysato oo rabto inaad markaasi aad foomkan ku buuxsato, waa in markaasi aad taariikhda ku qoran, haddaba dhegeyso, taariikhda ku qoran waa inay islahaadaan taariikhda documentiga aa meeshaan gelinayso, dhalashada kugu qoran. hadday dhalasho tahay ahaan calaashan ID card, tusaale ID card aa haystaa oo leesina, ama waxaa haystaa ID oo nationality ID aa haystaa, waxaa haystaa maxaa ladahay ID business card aa haystaa. marka ID-daas aa haysato oo sawirkaaga iyo taariikhda dhalashadaada iyo magacaaga ay ka muuqdaan, taariikhda kugu qoran, dheedka kugu qoran waa inaad mar walba gelisaa. okay, inaad fahantaa rajeynaa. halkan waxaad gelinaysaa maxaa leeyahay place of breed, waxa waaye waa place of breed, waa halka aad ku dhalatay, waa magaalada aad ku dhalatay, calashaan xarunta aad ku dhalatay. okay, waxaad ku dhalatay Muqdisho, Banaadir, Kismaayo, Hargeysa, Boosaaso, Bari, Boorama, halkii aad doonto adiga. okay, aniga hadda Muqdisho ayaan gelinayaa. region halkan ay ku qoran tahay, kolley Muqdisho aa ku qoran, waa ujeedaa. Banaadir. okay, hadda city caasimada waxa waaye caasimada waa Muqdisho city, region gobolka waa Muqdisho, xarunta aa ku dhashana waa Muqdisho. okay, meeshan waxaa lagu yiri maxaa ladahayay, waxaa lagu yiri halkan residency address. residency address waxaa la yiraahdaa, tusaale markii aad lacag la baxayso wanaagsbidada dadkan oo kaashiyerada lacagaha sarifa, markaad lacag u bixinayso waxaad samaysaa calaashaan waxaad gelisaa tusaale magaca markaasi qofka lacagta ku dirayo oo kaleeto ayaad gelisaa. aniga hadda exchange money waa sameeyaa oo maarata cashier waan ahay. kulley maarata asxaabteeda YouTube-ka ku xiran inay kusoo biiri doonto ayaan rajeynayaa. okay, waxaa igu qoran marka waxaa igu qoran diamond 24/7. okay, intaan inaa fahantaa ayaa rajeynayaa. marka labadan haddii aad ID card haysato, dhegeyso, warqadda dhalashada sugnaanta oo kale markii aad haysato documenti ayaad dooranaysaa.
markii aad haysato warqadda dhalashada sugnaanta markii aad haysato waxaad dooranaysaa haddaba markii adiga aad haysato dhegeyso labadan ayaa lagu soo bandhigay marka haddii aad documenti haysato documenti waxaa la dhahaa calaashaan tusaale sabarlooga oo kaleeto warqadda dhalashada sugnaanta oo kaleeto warqadahan adiga oo laga baxsho xafiisyada dowladaha oo kaleeto oo adiga markaasi noocay doonta ahaato warqad shahaado oo kaleeto ha ahaato adiga wixii documenti ku saabsan documenti ayaa dooranaysaa wixii ID ku saabsan ID ayaa dooranaysaa ID nationality ID business ha ahaado ma u kala baxsanaya laakiin ayaga waxaa ugu qoran muhiimaddu waxay tahay documenti iyo ID marka ID passport ID waay documenti waay hadda aniga documenti ayaan soo dooranaya waxaan rabaa marka inaan geliyo documentiga halkan inaan geliyo documentiga iyo lambarkiisa serial numberkiisa waxaa waaye tusaale eber 16 eber 17 halkan haddana waxaan gelinayaa eber 6 7 kani waa serial kanna waa documenti numberka inaa fahamta ayaa rajeynayaa okay taariikhda la sameeyey waa haddii aad aragto issue of that macnaha haddii aad aragto date of issue haddii aad aragto date of issue haddii aad aragto waxa weeye waxaa loola jeedaa taariikhda la sameeyey markaasi documentigani taariikhda la sameeyey okay taariikhda la sameeyey documentigani waxaa la sameeyey Febraayo 5 maxaa leeyahay bishii Janaayo 2 ayaa la sameeyey waa in ay islahaadaan calaashaan macluumaadkan halkan aan geynayo iyo hadhowdii documentigii ama ID-gii aniga aan ku samaystay inay islahaadaan okay halkani marka wuxuu ku yiri issue by sign yaa saxiixay markaan documentiga yaa saxiixay dib malaha documentiga waxaa saxiixay adiga muhiim ku ahan waxaad ku qori kartaa markaasi magacaaga ama magaca markaasi documentiga kugu qoran kolay magaca documentiga kugu qoran ayaad ku qori kartaa aniga waxaan ku qorayaa Cabdalla ayaa saxiixay okay intaan kulli waa fahantay intaan markii aad fahantay oo aad haysato macnaha gallery media ku qortay username magaca waaye laakiin calaashaan markii aan rabo in aan ku qorto magacayga macnaha intaan dambe macluumaadka si sax ayaa la wadaagay oo waa sida documentiga labadan waxaan misaal ahaan tusaale ahaan ooga dhigayaa calaashaan inta waxaa laga rabaa magacaaga koowaad magacaaga labaad ma maqlaysaa halkan tusaale maxamed aa lagu dhahaa documentiga waxaa kugu qoran maxamed adi lahaw ama qof walaalka ha lahaado ama qof qaraabatiin ha lahaado magaca markaasi ID-ga ama documentiga markaasi adiga aad ku qoranayso ee aad gashanayso markaasi meeshan aad gashanayso oo hadhowdii xoolahaagii ama wixii kaaga xayir ma aragto inaad ku badbaadsato waa inaad halkan magac ku qoran aad gelisaa tusaale maxamed Cabdalla Mustafa Muhammad okay waasan inaad fahamtay ee rajeynaya halkan marka intaan marka waxa waaye intani waxaan saaray kani waxaan saaray Cabdalla halkan waxaan ku qoray Mustafa halkan Muhammad ayaan ku qoray halkan waa taariikhda ama dhalashada ha noqoto oo markaas documentiga u qoran ha noqoto ama ha noqoto taariikhda markaas ID ku qoran ha noqoto meeshani waa xarunta dhalashadaada halkan waa gobolka markaas joogto halkanna waa caasimadda markaas aad joogto reside address-kana waxa waaye ii sheeg adiga residency address-kana waxa weeye markaasi address-ka hadhowdi haddii aad cashier ama aad rabto inaad lacagta wanag sweet kugu jirta oo wanag sweet qof kale ugu dirto aad rabto
ama lagugu soo diro aad rabto qof kale wanaagsan mid kugu soo diro aad rabto addresska lagugu soo diri lahaa. halkan marka waxaad ku qoraysaa halkan waa documenti haddii aad taabato waxaa kuu soo baxaya ID ama documenti. hadda documenti ayaan soo doortay serial numberka markaasi ID-ga kugu qoran ama documentiga kugu qoran. halkan waa numberka oo complete oo markaasi kugu qoran ii sheeg adiga ilaahay kuma darnaadee kani waa serial ha isku qaldin midkan lambaradan tirada badan serial waaye wuxuu ku qoran yahay kaarka adiga haysato jiifarada ku qoran ama documentiga jiifarada tirada badan ee ku qoran waaye. laakiin kan hoose waa kaar macnaha kaar numberka ama ID-ga ama documenti numberka markaas adiga aad leedahay waaye. kulay inaa fahantaa rajeynaa. halkani taariikhda la sameeyay waaye. intaan markii aad dhameyso kadib halkan saxiixa waxa doonto ku qoro kadib inta aad halkan aad tigtaan inta aad taaban waa inaad screenshot aad ka qaadataa. screenshot waa inaad ka qaadataa kulay kadib ayaa tigta saaraysaa. marka profile-kii kulay waa soo buuxinay oo wada aragtaa oo complete waaye oo halkan aad ka arki kartaa. kaleeto waxaan ku xasuusinayaa haddii markaasi uu lambar uu ku saarneen kuwan muuqaal aan ka duway jiraan qaabka loo buuxiyo kulay si waad sii daawo kartaa. haddii kaleetana hadeertaan ayaan idinkoo arkaya buuxinayaa gmailka halkan tig ayaa halkan tig ayuu ku saaray. halkan marka halkan aad tegaysaa waxaad sameynaysaa question meeshan ay ku qoran tahay halkan ay ku qoran tahay waxaa halkan ku qoran answer to your question. inta wuxuu ku yiri select your question. halkan marka question security lahaa question security-ga mararka qaar wuxuu kaa caawin karaa in akoonkaaga qof aan security question-kan aan ka jawaabi karin inuusan furi karin. ma fahantay ayaa rajeynayaa marka